السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، waxaan jeclaystay in aan idinla wadaago abkaas oo qur-aan ku saabsan. Abkaasina waa kani halkan idinka muuqda, shaashada idinka muuqda. Abkani abyaasha qur-aanka wuxuu la dheeryahay aniga intaan arkay. Faa'iido fara badan ayuu leeyahay, waxyaalo fara badan ayaa ku jira oo qofka ardayga ah iyo caruurta dugsiga dhigata ilaa dadka waaweynba faa'iido u leh. Macallin ha ahaado, waalid ha ahaado, faa'iido u leh oo caruurta ay ka faa'iidi karaan intay guriga iyo xaafadda joogaan habeenkii iyo maalinkiiba, intay ku mashquuli lahaayeen kaartoon iyo riwaayado iyo waxyaalo madadaalisa intay ku mashquuli lahaayeen, in abkani ay ka faa'iidaystaan oo casharkii ku adkaa iyo muraajacadii ay ka heli karaan. Wadaad ugu celceliya inta uu rabo isaga 2 jeer, 3 jeer, 4 jeer, ama inuu aayadda maanta dhan 24 hours uu ku celiyo. Intaba waa laga helayaa oo abkan waa ab casriyeysan. Waxaa inta kaloo la dheer tafsiira ku jira nooc alla noocaad rabto, luuqad alle luuqadii aad jeceshahay adiga aad garanaysa aad fahmaysid. waxyaalo fara badan ku jira, bal aan isla aragno. Bismillaah. haddaan fura abkii wakaas, hadda inta ugu yar laabto suuradii wakaas, suura jus bookmark. marka hadda baqra aan aniga taabto suuradii wataas soo adi kartaa, caadi weeye waa sida kuwa kale. halkaas aad arkaysaan ee u eg calaamadda webka camal u eg, halka haddaad taabato tafsiiradii way waad u jeedaa. aniga 3 luuqad ay igu jirto: tafsiir muyasar iyo luuqadda Soomaaliga iyo Ingiliishka. qaybta kore tafsiir muyasar ay soo hormarsan waa u jeedaa wadkur yaa ayuha rasuulu linnaasi xiina qaala rabbuka almalaa'ika. qaybta labaadna waa af Soomaali: xus markuu ku yidhi eebaha malaa'igta waxaan yeeli dhulka cid u harta, oyna dhaheen ma waxaad yeeli dhexdeeda, yacni dhulka dhexdiisa, cid fasahaadisa. qaybta dambena waa English, adiga luuqadii marka adiga aad jeceshay ku cajabgelisa aad rabta ayaad kala soo degaysaa. luuqooyin fara badan way ku jiraan. halkan hoose ee hadda aad u jeeda Yaasir Al-Dawsari ku qoran, haddaad taabato ayadana waa kan culumadii qur-aanka duubtay way ku idil yahaan gidigood. marka adiga sheekhaad rabtid ayaad soo dejisanaysaa, waad dhegeysanaysaa. culimada kudi inta badan way ku jiraan: Cabdullah Baasid Mujawad, Cabdulmuxsin, Cabdulcasiis Sico, culimada Cabdiraxmaan Sudays, Cabdirashiid Tuufi, Abubakar Shaatibi, Cajami, Mshaawi, Qaliil Xusari, Maahir Maciiqali, inta way ku jiraan. marka adi midkaa rabto kala soo deg. marka hadda halka hore ku celiyo oo tafsiirka aan ka qaado, wakaa kitaabkii bejkii waa sidaas. bal aan dhegeysano wax yar, aan ku yarnisano Sheekh Yaasir Al-Dawsari anagoo tijaabinayno aayadda markuu akhrinayo. sheekha halkaas calaamada ku saar oo ku tusinaysa aayadda uu marahayo. sheekha aayadda markuu akhrinayo calaamadda way la socotaa. halka hadda inta kaga gudubno qaybtan hoose, filaariyada aad arkaysaan isdoomarsan iyo calaamadooyinkan waa qaybtii yacni repeatingka kusoo celitaanka. hadda hal mar haddaan halkaa ku dhufto labada filaar isdoomarsan, sheekha aayadda 2 jeer ku celin. haddaad kusii dhufatid oo number 2 kusoo qormato 3 jeer ku celin. haddaad kusii dhufatid oo riixdid number 3 ayuu kusoo qorayaa, sheekha 4 jeer ayuu ku celinayaa. haddaad kusii dhufatid 00 buu kusii qori, sheekha aayaddaasi dhaafi maayo, maal 12 buu ku celinhayaa. bal ila dhegeyso. 2 jeer hadduu ku celiyay, haddaan u daynina maal 12 buu ku celinahayaa. halka haddaan intaa kaga gudubno qaybta sittingka haddaan aadno, sittingka waxaa weeyaan wadciga Arabic mode. haddaad rabto English ka dhigan kartaa, waxaad doonta adiga ka dhigan kartaa. soo soco qaybtan night mode ku qorana, habeen iyo maalin waxaad rabtaa ka dhigan kartaa, yacni shaashada qaybta kitaabka. soo soco halkani bejka saad u doonto adiga weeyaan, ee adiga saad jeceshahay. volume-ka intaad rabto waxaad kaloo ka dhigi kartaa size-ka oo yacni translation size-ka. sii soco translation inta ayagana ka heli kartaa.
Arabic ميسر، Somali translation، English، Amharic. adi luqad alla luqad arto oo translation ama fasirida ayaad halkan ka degsanaysaa. halkaas hoos oo soo ku reebaya iyo size-ka inta rabto xajmiga yacni waa yaraysan kartaa waa weynaysan kartaa waxyaalo fara badan ayuu leeyahay. marka maasha allah waa ab aad iyo aad muhiim ah qofka ka faa'iideysanayo. intaas ayaan jeclaystay inaan idin soo gudbiyo. hada billahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.